degmada Boondere ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale degmooyinka ku hareeraysan xalay ilaa maanta waxa ay si toos ah u marti gelinayaan banaanbaxyo rabshado wato oo ay dhigayaan dadka shacabka ee ku nool halkaasi. Banaanbaxayaasha isu soo baxay oo u badan dhalinyaro ayaa hakad geliyay gebi ahaanba isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale ganacsiga xaafadaha, waxayna si isku mid ah ugu dhawaaqayaan falal ay si aad ah ugu diidan yihiin falkii naxdinta lahaa ee xalay ka dhacay gudaha degmada Boondere kaas oo ahaa askari ka tirsan ciidanka booliisku oo bilowgii bandooga ku diray laba ruux oo shacab ah gurigooda hortiisa. dhalinyaradani oo warbaahinta la hadlaya waxa ay dareenkooda si isku mid ah u gaarsiinayaan madaxda qaranka, waxayna tilmaameen in arrintan ay tahay mid aan loo dulqaadan karin iyagoo cadeeyay inaysan banaanbaxa joojin doonin tan iyo inta ay helayaan cadaalad. mudane madaxweyne dawladda cabasho badan ka tabeeyna saana ma qabata canshuura bixiyoyna waraa masaakiinaan nahay canshuura nagala qaado waxay xasaradeen u tukacsantaa maanta mudane madaxweyne waa adiga dartaa marastii la dilaa gabar 3 biri dhalan waraa 3 biri 3 day inta ka shaqaysaa laa ilaaha illa allah maxamed mudane madaxweyne wanaaga waa jecelna wixii wanaagsan waan jecelna mudane madaxweyne waxa u naafoo aanay qaranka Soomaaliya Soomaaliya inay sii jirtaa jeclahay hana dudumin war hadda curanna hana dudumin ilaahay ka cabso dilka nagala daayo taqullah bando naan biximaayo bando mudane madaxweyne. assalaamu calaykum wa salaam ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed muqdisho waa la kala xiray maalin kasta bandooga nagu soo reegay 2 saac hal saac ay gaarsiiyeen ummadda waa dhibaateeyeen dawladdan ilaahay ha naga qabto xalal shacab masaakiin ah dileen gabar ummalay xal gurigooda ku dhex dilaan boolis aan aqoon dawladnimada waxay tahay magaalada muqdisho lagu soo daay meel kasta dhagax ay ku xireen bil Ramadaan waa ilaahay ma ka cabsanaa awal Ramadaan ka horna dhibaayeen ma rabna farmaajo iyo kooxdiisa ha dhacaano ma doonayno ha dhacaano farmaajo iyo kooxdiisa ha dhacaano balanka baxo sameey war dadkan shacabka wax ka fiican ma shacabka muqdisho dadka jooga dadka muqdisho ku nool waa dadka shalay u banaan baxay farmaajo muqdisho laga doortay shalay asoo mucaarad ahaa doorna maanta oo dawladii ka horeey mucaaraday maanta sababta oo dadka mucaaradka iyo dadka masaakiinta oo u dilay maxay tahay ilaahay farmaajo na qabta Ramadaan la joogay iyo kooxdiisa rabbi nagu soo celiyo farmaajo iyo kooxdiisa ha dhacaano farmaajo iyo kooxdiisa. dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo gaaray goobta uu banaanbaxani ka socday ayaa la hadlay dadka waxa uu gudoomiyuhu sheegay in shacabka Muqdisho xaq ay u leeyihiin inay ka dhiidhiyaan waxyaabaha dhibaatada ku haya, wuxuuna uga mahad celiyay sida ay u soo bandhigeen dareenkooda isagoo carabka ku adkeeyay in cadaalad la marsiin doono shaqsigii dhibaatada geystay isla markaana falalka noocan aan loo dulqaadanaynin. xalay si mas'uuliyad darro ah ayaa 2 qof oo shacab ah wuxuu ku dilay askari booliis ah. askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa. adinka mas'uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayaga maxkamadaynaya ninka dhibka dhigay ayaga maxkamadaynaya qoysaska laga dilay dadka ee aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna. waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya. tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan ahayn tii xalay oo kaliya ayadana dawladdu way ka fadhidaa go'aanada laga soo saari doonaa. dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aan ayaana ka soo bixi doona. go'aanada soo bixi doona aan dhowrno waxaan doonayaa oo kale inaan idin sheego annagu adinka ayaan garabkiina nahay. ciidaha Rosmaagne wararka laanta afka Soomaaliga ee codka bariga Afrika Muqdisho.